ilaahay horta dee muuse waan qaban kari weyne ilaahay baa qabtay dee ilaahay ku qabtay wax alla wixii uu sheegan jiray oo dhan baa ilaahay uu dhan kala rogay muuse power buu sheegan jiray faan ciidan buu sheegan jiray inuu dalka xoog ku difaaciyo sheegan jiray aad ku faraxsan tahay marka in ma ku faraxsaniyay saddexdaa arrimood inuu muuse uu shakhsiyan u fashilmo hawa ku faraxsanay muuse digdigtiisa iyo kibirkiisa ummadda ka fadhiisan wey laakiin muuse laakiin ku sheego ikaadi muuse Somaliland ma fashilmin muusana way ka haraysaa hortiina way jirtaa maxamed abiib haddaad maanta adigu midida daabkeeda ahaan lahayd oo aad madaxweynaha Somaliland ba ahaan lahayd sidaad u xalin lahayd arrinta laascaanood ana waxa kamid ahay dadka ma aragtay sympathy gaarka ah iyo ciidanka markaan ololeynay baa ku waa duruufaha guriyooga yeelan uga marka ma waxa doonaysaa in arrinta laascaanood oo kale ay buuran no ma rabo aniga shayga ugu horeeya waa rahayba nabadgelyo way qorshayga ugu horeeya inaan qof noloshiisa hagaajiyaan doonaya oo sidoo shalay uu noloshiisa ka duwan noolaado laakiin markaad tahay qof ku hamiyay inaad jabhad samayso inaad dad dagaalasiiso inaad dad islaayana doonayso de inaad qof nolosho uma socoteen inaad dadka leysada socotaa you are killer baa tahay de I'm not killer anigu Somaliland dad baa qabsaday 20 sano markii ugu dambeeyay jeel baa qabsaday ajiiba oo ilaahay inaan dib inoo soo mirin aan ugu aan ilaahay baryo oo ah jeel la yiraahdo ka nafaqayso ka dhoo ka shaqayso iskala uu hiyo iska dhignin dalka dayay dadka dan waa laakiin xildhibaan dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin siyaasiyiinta Somaliland mucaarad iyo maxaafidan ayaan islaamin imika waxa leedahay in xoolo la dhacay in musuqmaasuq la galay adoo golaha wakiilada 2 sano ka hor baa timi iyadoo deyn la gulayay saad hor u sheegtay maanta gurigan qasriga baad ku jirtaa oo aad dhisatay 2 sano gudahood mushaharkaagan waa la yaqaan xagad ka keenta musharax imika maxaad uga carartay wadani kulanti haboon idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada waraysi gaar oo la yeelan doono xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada ee Somaliland maxamed abiib waxaanu ka waraysan doonaa xaalado kala duwan oo ku saabsan Somaliland ay xilligan ku jirto xildhibaan marka hore ku soo dhawow Galad Media waanu kaaga mahadcelinaynaa inaad waraysigan siiso soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ma santahay aad iyo aad ma santahay adiga iyo ma aragtay Galad Media oo idin ma naqaya aad baad xildhibaan u mahadsan tahay inkasta oo dhawaan aad hadashay oo hadal dheer aad jeedisay oo turjumaado kala duwan laga bixiyay bal xaaladda guud ee Somaliland ka waran xildhibaan alxamdulilah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin runtii xaaladda guud ee Somaliland waa mid maanta dadkan dheergaradka in la weydiiyo oo kaliya tama ay garan karaan xitaa dadka caadiga ah baa garan kara halkaynu marayno runtii xaaladda dhaqaalo adag baynu ku jirnaa ma aragtay xukuumadda muuse Somaliland dastuurka inoogu qornayd ahayd xuduudaheedu ay ahaayeen ma aragtay xuduudihii 60kii ma aragtay maanta aynu wada hadlayno wax badan baa ayaa iska bedelay xagga nabadgelyada iyo doorashooyinkana ma aragtay de culays badan baa soo fuulay oo wada ogtahay ma aragtay ilaa de imika maanta shalay waa la dejiyay lagu wariyo ilaa de gacan libaxde oo wadnihii wadanka hadda inay de jabadi fuusho ayaa ay gaadhay inta waxa ka badan in de systemka doorashooyinku de ay gaadheen de markii ugu horeysay in de ma aragtay odayaasha dhaqanku ya ay ka garan qaan wiilka odayaasha dhaqanku nabadgelyadu bay gacanta ku hayeen oo meeshii waxa nabadgelyaa walba yagahay haday qof tahay haday qor tahay haday qoon tahay iyo haday qabiilo tahay iyaga hay arrinkaas iyaga hin jir maanta waxa ku darsan ka doorashooyinka marka waxa ku tusaysaa in ma aragtay dadkii siyaasiyiinta iyo hormuudka ahaa ma aragtay waliba kuwii khaasatan talada gacanta ku hayay inay taladii gacantooda ka baxday eedaa yaa leh xildhibaan ma baarlamaanka leh ma xukuumadda leh ma mucaaradka leh yaa leh eedu dadka ma dhaxaysa waxa iskale dee dalku hoggaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxa xumaadana waa mas'uuliyadii xukuumadda ma jiro sharci baarlamaan ka soo baxay dad isku dileen mararka qaar way dhacday in baarlamaanadu sharci soo saaraan dadka isku dilaan isku dhuftaan laakiin fulintii weydii laakiin maadaama dhaarkii saddexaad ee wadanka atiin oo baarlamaankii tiin soo idinkuba mas'uuliyadda qayb kuma yeelanaysaan wallahi inaan waxa soo dhan xakamayno oo ma aragtay haddii dagaal la geliyo guluuf saxaabeed waxa dhibaatada ugu weyn noo geystana waa dagaalka weeyaan aan loo baahnayn ee ku bilaabmay ciyaarta iyo yeelka ay ku bilaabmay
iyo qoortaan jibinaya hebel si firsi bala baad fahamtay dee anu waxaan araggii intaaba diidanaa ilahay war ka daaya rag walaalo wuxuu ku dhaamo ma jirto soolna dee dagaalkaas soolna dadka waxa laysku haystay maalintii ugu horeysaa laisku haystay war cidaynu meesha isku haysanaa waayo aynu wada hadlaynaa waa shacabkii soolo mudaharaad iyo banaanbaxay bayaan wax alla wixii kale ka dambeeyey iyo wixii kale maad aragtay arrinta dhaliyay wuxuu doonaa noqday laakiin dadka mudaharaad dadkii sool baan soo marka dee madaxweyne muusena maalmaha dee aad buu cabanaadee waxaan malay imika inuu miirsaday oo sida islaamka u fikirayaan u malaynaya maalmaha dee wuxuu islaa cid walba dee wandarbaaxaya dee maaniga dee lay biqi maayo aniga hadalkiisu bay taas ku koobnaa ma garanaysa marka xaaladda anigaaba halkayna gaadhsiisay xaalad dhaqaale dadku maad aragtay markaad magaalooyinka aragto aad bay maciishadu u sare tagtay cid waxba iskama weydiiso golaha iyagu waxba iskama weydiiyo kirooyinka guryaha iyo biyo la-aanta wadanka iyo maad aragtay xoolaha si yaraanaya dadka baadiyaha maad aragtay iyaga dhammaantood way soo barakacayaanba special how badnaada gobolada bari dadka imanaya xoolihii waa dhammaadeen dadku way soo barakaceen magaalooyin bay imanayaan dawladdu wax iska weydiisaa ma jirto maaha intan 40 qof ee maaragtay Soomaaliland dibgeedu waxay noqotay inay ka shaqeyso doorasho wax la yiraahdo laakiin noloshii caadiga ahayd dadka caadiga reer Soomaaliland maanta meel adag waliba wax ka sii daran wax xaaladaad ku sugan tahay hadaad rajo u leedahay rajo oo isleedahay berri baad ka baxaysaa iyo saadabaad ka baxaysaa ragga iyo dumarka iyo carruurta intuba way xamilaandeen maanta xoolaha xamilaa oo beerta lagu qodanayo dibiga la yiraahdo markay beertu bislaataa ku bari goynti rajada be ayaa loo kaxeeyaa marka maanta dadku markaad dhageysato way aad bay u marxuun laakiin anigu waxaan arkaa iftiin badan oo ka dambeeya madowgaas maanta taagan iyo ka muuqdan arkaa oo ka wanaagsan kan haddii inagu isbedelka maad aragtay dadku ay iyagu dhali waayaan ka ilaahay baa imanayo dadkani waa dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan weyn Soomaaliland degan shacabka oo samir badan oo dulqaad badan waxaan rajeynaa inuu ilaahay maanta dulqaadkooda iyo samirkooda ilaahay wax ku siiyo because waxa laga buuxiyay kuwii u faanayay kuwii iskaga dhigay balaayada kuwii iyagu inay la jecel badan u haystay kuwii inay dadka iyagu leeyihiin u haystay baa fashilmay markay fashilmaan raggaaba ilaahay dadka ku arsaaqay oo samirkooda iyo dulqaadkooda iyo wanaagooda uu ilaahay uu wax ku siinaya ay samriyeen ay ilaahay haddaan qadno waanu jooginaa weer Soomaaliland darisbana marka waxaan rajeynaynaa taa ilaahay wax ku siiyo arrintii laascanood haddaynu ku noqono waxaad ogtahay in Puntland ciidamo ka tirsan ay soo yimaadeen oo ka dagaalamayeen in ciidamo kale oo meel ka yimi ay yimaadeen laascanood waxa soo dhan adiga kuma muuqan miya maya si fiican bay ugu muuqdaan laakiin maxaa keenay waa loo yeeray madaxweynaha u yeeray dadka sidoo uu yeeray ku sheegay imika sool dadka jooga dad aragta markay hadlayaan waxaan marka qaar soo iyaga bay naga dawladso way qayb cadawga cidda saysan wal qaybiyama ayuu jeedaan iyagu de waxay wal qaybinaya wax leey reer hebel kuma jiro Soomaaliland isla uu yeeray wuxuu la soo raaca gibgiina macal shanta xamar fadhiya macal xabsiga maxamed buu yeeray waa khudbad cadaan oo madaxweynuhu jeediyay waa duubteen ragiisii baahiyood ka mitiin hadalkaas isagoo shantiina madaxweyne xamar fadhiya soo raac waska ka filanahay weligii taariikhda maarag nin uu yeedham xal leedahay dadka sayaan soo ururiyo ila soo wada raac Mareykanka kuma sameeyo markuu wadan yar Afrika ku duulayo weerar imika haduu wuxuu rabaa inuu kala furo ECOWAS maartay xulafada galbeedka Afrika ka jirta ayuu rabaa Niger inay isaga Faransiisku ay ka saaraan say u weeraraan deegaanka madaxweynuhu uu yeeriyo wuxuu la soo raac iska ka filan ayaa biyaashii soo wareystay dadka lama cariyo magaca qabiilkee lagu soo dagaal tagay Muuse sameeyay iyagu bay sameeyay waayo maalinta hadduu Puntland haday soo raacayso oo niman daaroodii soo bahaysanayaan 20 sanadood tuuto safar ka soo bilaabmaynu socono ila taqarrasoma ismay soo bahaysan meel lacag ku rimayna inteena u banaysan wixii laga soo jeedo kolba soo Muuse u yeeray aragti xumada u yeeray siyaasad xumada u yeeray dadkaaga inaad dad kale ku ladho ilaa reesol dadka inaga hayn haddaad laakiin reesol reer Puntland raaciso oo maadartay reer qarna raaciso oo reer maadartay raaciso de walaalo waa isku kaas waa lagu yeeriyaa marka hadday dad soo baahaysta walaalkii laakiin waa loo yeeran inuu qaba dadka maxamed abiib haddaad maanta adigu midida daabkeeda ahaan lahayd oo aad madaxweynaha Soomaaliland ba ahaan lahayd sidaad u xalin lahayd arrinta laascanood
maanta mise bilowgii maalintii san yeeli laha labadaba ka soo qaad maalintii bilowgii reer sool qof baa la dilay qofkaa la dilay dadkaasi gar iyo gartaro qofka lagu dili karaa suuqa Hargeysa kuwa lagu dilay oo ay dadku mudaharaadaan waa askar la garan ama cidii shan la garan bay ka mudaharaadaan waa qofku qiimuhu ku leeyahay iyay dadku habaxsanaan dareemaan waxay sulxul khayr qofku sulxiga ayaa wanaagsan dadku markay mudayna garowshe la siiyo qof baa ka dhintay garowshe si la walaalnimo si la wax kar joogan u yeedla jidku u maray madaxweyne daahir riyaal ka yimid ka si wanaagsan baan marila oo on aamino waarinagu xoog waxba kuma kala qaadan karno xoog kuma midoobi karno xoog waxba kuma wada yeelan karno walaalnimo wax ku wada yeelan karina dhacdadana way dhacday oo dhacday kooban soma okay inta soo dhacdo ku horeeyo iyagu soo arkayna way taynaguna soo arkay maamulkuna soo arkay dadku wax ka badan bay ka heshiyeen waxaan ka wada kala shaqeyn lahaa waxa sidii meesha looga saari lahaa iyaguna ay systemkoogii dawladoodii ay uga mid noqon lahaayeen 13 garaad markay soo saareen go'aanka ay yiraahdeen Soomaaliland naga baxdo oo og ha tagto go'aan uu ceebad qaadan leh actually oo ka tagto oo bal isku ma haynin waxa la isku hayba baashi maxaa la yiraahdaa magaaladan maxay cadacatay international community Ethiopia 20 kilomitir bal magaalada dib uga qad 20 kilomitir waxaas mar dambe oo tar waday oo dhibaatooyin dhacay baheed soo deganaysid haddii dadkaagu ay ku raadaan waan tashanayna naga qad haddii maalintii laga soo qaado way tashan lahayn culayska dhaqaale iyo culayska alooska iyo askarta timid iyo intaasoo kun oo qoriyo yimid malaayiin timid haddii laga soo qaado xitaa ugu la keenay yimaadeen wala xiisa dhici laha soo garanaysid dadku markay xiisa dhacaan ay arkaan inaad yeeshay oo aqbashay iyaguna dadku mid dakarkay ay aqbalayaan dadku mid dakarkay aqbal wad yeeshama taariyaal maalintii markii isaga la weeraro madaxweyne xabad la dhacay wasiirihiisa qaar la joogay baa yiri waa kii weerar sugu bixiyay dalkiisa ciidan geli wuxuu la gelin maayo ciidanku ka baatiyay waxa keentay inuu mafaatiix helo ku furto magaalada mafaatiix oo yiraahdaan dadka la xajalo idin qabay weydin turay weeyda sharfay weeydi karaameeye teedina karaameeye marka waxa qaba waa saariya ciidanka hadaan raadaan baabuurta saaraynay bay oran lahaayeen wariska taaba hadda ciidanka Soomaaliland oo gu jooga wilna xiisadii la ascaanood way taagan tahay marka intayna arinta la ascaanood ka bixin hadda maxad xal u aragtaa horta ilaahay horta Muuse waan qaban kari weynaa ilaahay baa qabtay ilaahay ku qabtay waxa la wixii uu sheegan jiray oo dhan baa ilaahay u dhan kala rogay Muuse power buu sheegan jiray faan ciidan buu sheegan jiray inuu dalka xoog ku difaaciyo sheegan jiray ku faraxsan tahay marka in ciidamada ku faraxsaniyay saddexda arrimood inuu Muuse uu shakhsiyan u fashilmo hawo ku faraxsan Muuse digdigtiisa iyo kibirkiisa ummadda ka fadhiisan weey laakiin Muuse Somaliland baa sheego ikadi Muuse Somaliland ma fashilmin Muusena way kaaraysaa hortiina way jirtay soo garmaysid hortiina way jirtay Somaliland Muuse ma raaci karto laakiin uu dhaawacan rag dawey Somaliland leedahay dawladda weynaya laakiin ninkaasi taariikhi uu sodonka sano ummadda ku wareerinayay maxay baan ahaayay libax baan ahaayay maxay baan shubi jiray balaadi way wixii dhaqaale uu noogu dhisi waayay hanti uu noogu sameyn waayay lacag uu noogu sameyn waayay ummaddu ku midayn kari waayay raganimadu sheeganayay wadankii la xajacado kala ha Somaliland buu ugu dambeyd ku difaaci waayay ugu dambeyntii wuxuu safe garin kari waayay qalabkii iyo lacagtan aysan u safe garin kari waayay kuwa caynkaas inay taariikhda ku dhintaan aad baan u jecelahay anigu oo taariikhdu disho kuwa caynka faanka badan leh beenta ku nool ee dadka sameeysta inay taariikhdu disho inay marag u gasho taariikhdu dhulka dhigto aad iyo aad baan u jecelahay anigu isaga iyo kuwa la midka kaligiina ma intaasoo nin oo xoog oo isku dayay inuu ummadda xoog ku xukumo bay taariikhdu disho oo dictator soo dhaqanka dictatorka Muuse waynu dooran sidii dad doortay noolamu dhaqmin tallaabadii la qaadaba hadduu wariye tallaabo qaado hadday cid meel ka soo banaan baxdo qorta jabiyo laad waad igu soo qaarkaysa ciyaarka madax laga wada tooganay weligii madaxweyne sama sameyn askari meel difaac iyo xabado ka fikan jirtay wad garanaysaa xabad fakada dad qof idishay laakiin dad badan loo sameeyo marka taas wata midna wata ciidanka iyo ku saabsan xaaladda dalka ciidanku iskii uma fashilmin iskii uma jabin wax isaga ka yimid marna waa min ciidan midna marna wax kaaga timaada dhibaatadu dibadda marna gudaha ka timaada ciidanka siyaasad xumada Muuse iyo ku hogaamiya fashilsan laakiin ciidan strong oo isku dhex jira
oo maad aragtay discipliinkiisu uu wanaagsanaa ciidanka Somaliland ee militarigu taasi ummaddan oo kale dadku oo kale bas faanta wuxuu ku joogayna laakiin ciidanka markay dad jaahili qabsadaan aragtaa ka lumaysa aragtidii luntay iyo hogaamin xumadii ba keentay ciidanka boqolkiiba 5 nin ugu sareeya amrayo 5 jarna ku soo xiga dhamaantood wada of HBM ragii wax loo soo baray wadanka loo diiday oo kan wada joogan halkiisa wada fadhiyaan dhalinyarada bas faanta halka ka soo jeedanaya joogay 25 jiradeed maskaxdooda iyo muruqoogu buuxday ayaa joogay hor joogay kuwii baa weli sii dul jooga anu halka ugu horeeyay waxaan baarlamaanka ka tirsanay anu waxa kamid ahay dadka ma aragtay sympathiga gaarka ah ee ciidanka markaan ololeynay baa ku waa duruufaha guriyooga yaalaan uga miisaaniyadii dhaweytoole sanadkii dhaweytoole nasiibana safar ku maqan bay timid waxaan rabay 5 sanadood inaan ma aragtay soo jeedintayda iyo ku dagaalka miisaaniyada ciidanku inay noqoto arrin continuous inay noqoto ayu qorshaygu hawo dabada hayo oo sanad walba ciidanka loo kordhiyo sanadkii dhaweytoolena si wana safray bay miisaaniyada waqtigii waliba iyadoo dib baa loo dhigay iyagu loo safray markii daba hore loo soo dhigo la soo geliyay wanagii 30% u kordhinay imika shaqada ugu horeysay ciidanka Morso bood noqonaysa waxay noqonaysaa in ciidanka halka jooga dib u habeen lagu sameeyo dadka wixii waaweyn aan dulmiga ka deyno odayaasha waaweyn ee waqtiga dhaaf inaan dulmiga ka deyno lacag fiican la siiyo bashan galaan waxa dambana la isku habeeyo la qaalo fiican baarlamaanka ku sameeyo lacag fiican oo qaata ciidanku waa lagu dhexnooliyay ciidanka oo rag way jabiyeen kula hayba miisaaniyada ka qayb gala oo wax ka qaata taydi sabab beersad lacag ka badan ma ku bixinaa hay'adaha amaanka waxaad ku cadeynaysaa in waxaan ku cadeynaya lacagtaas inaan xildhibaan baarlamaanka waliba guddiga dabagalkana cadeymaan oo yaacad waxyaabaha mamnuuc ee lagu qarsado ciidanka waxa kamid ah adduunyada ma jiro ciidan qaran oo Mareykan ha noqoto Yurub ha noqoto Ciraaq ha noqoto Falastiin ha noqoto Soomaaliya ha noqoto wadanka Faransiiska ka argixisayaan ciidamadiisu fayl bay leeyihiin waa la yaqaan tiradoodii iyo arrinkooda waa la yaqaan maalin walba idaacadaad ka dhageysatay iyadoo la leeyahay intaas oo kun askari baa soo baxay intaas ku biiray tirada ciidanka intaas xiri jooga soo garmaysta waa la yaqaan tirada ciidanka hay'adda maxaa la yiraahdaa soo saarta maxaa la yiraahdaa arrimaha ciidamada maxaa la oran jiray ayaa habeen walba sheegta tiradoodii ay tayihiin inaga waa sir beel soo too sir loo dhimad garanaysa waa ku qarsiga musuqmaasuqa weey waa ku qarsiga caaglaha weey marka kuwaas arabna maanta ina ka saarna ciidanka laga saaro oo ciidankeenu noqdo ciidan la yaqaano oo xiriya ku jira oo xooga oo askariga militariga uu 42 sano ku ritaar garoobo si uu noqdo askari majuura oo xoogu haya waayo markaad aragto ciidan boqolkiiba 40 ama 30 kamid chronic nin kasta macaan bahaya qofka bini'aadamkiina markuu dagaal galiyo inuu macaan ku dhacday xaalad adag buu ku jira waa si dhib yar anu waxaan aaminsan rag badan inuu macaan ku dhacay si qori u ridayeen ama meel u lugeynayeen marka daryeel waayeen marka walaalow ciidankeena iskii uu jibay rag baa jibiyay raggii jibiyeen waa kuwa halka jooga weey madaxweynuhu ilaa maanta kama hadal golaha iyagaan ku nool gudoomiyaha golaha wakiilada noogu yeer fadhi xiran noogu yeer badan la nooguma yeerin channel nooguma yeerin wasiirka ashadii nooguma yeerin iyagii baa wali ciidankii ay jabiyeen ay xumeeyeen bay ka dul batarinayaan marka xildhibaan maadaama aad rol leedihiin oo aad door leedihiin oo aad baarlamaankii tihiin oo wakiiladii tihiin aanad aaminsan tahay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu fashilantay waxa jira talaabooyin baarlamaanka u bannaan maxaad u qaadi lahayd laba qodob baa jira xasan walaal golayna waad ka waraysaa way markuu hadduu hoggaanku xumaado dadkana way la xumaadaan goluhu maalin walba aniga iyo mudanayaal kooban waxaan rag gale war loo yeero madaxweynaha fadhi xiran loogu yeero badii la doono hal weydiyo xaaladda ciidanka xaaladda wadanka la weydiyo hal loo yeero janka military iyo shirki gaashaandhig hal weydiyo wixii dhacay kuwa kale ka soo horjeedo kullu ma yeeri aynu xaalad baynu ku jirnaa qarsan 4 sanadood baynu qarsan ku jirnaa 5 sano ku horeysana qarsan ku jirnaa maxay noogu hagaagin waxbay noogu hagaagin isla xisaabtanka wax ku hagaagan marka ninka dambiga gali dambigiisa lagu cadeeyay ku hagaagan laakiin anaaba la eegayaa saak wariyaha la eegayaa awoodii lagu shaqeyn lahaa wax lagu hagaajin lahaa dadka loo isticmaalayo wax hagaajinay marka baarlamaankii dawadkiisa xaaladiisu waa dhinacyo dhinacyadii de adduunyada soo ma shaqeysa adduunyadu waxay leeyihiin dan guud bay leeyihiin waxay wada ilaashadaan bay leeyihiin Somaliland dad baa qabsaday 20 sano markuu ugu dambeeyay jeel baa qabsaday ajiiba oo ilaahay inaan dib inoo soo mirin aan ilaahay baryo oo ah jeel la yiraahdo ka nafaqayso ka dhoo ka shaqeyso iskana uu hiyo iska dhignin dalka dayay dadka dan waa hadaba garatay wax allaaliyo wuxuu ummadda u qabtaan aan jir runno ku sheegaya ummaddu
waxa danta gaarka la helaa waxa san wariye ahaanaya oo wariye qurux badan ahaanaya oo kamaradaha fiicanaysanaya markii danta guud hagaagsanta danta guudna maxaa la yiraahdaa waa nabadgelyada waa wax qabadka waa isla xisaabtanka waa ilaalinta ciidanka waa ilaalinta maaragtay waxbarashada waa ilaalinta tayada wanaagsan ee caafimaadka waa ilaalinta hooyada waa ilaalinta ilmaha yar baa la danta guud la yiraahdaa marka inta la ilaaliyo qofka mas'uulka inta uu garto ayuu maaragtay danta gaarka la helayo maxamed abiib xildhibaan nabad ku nool qurux badan noqonaya kuwii lacagtii amniga baabiyey kuwii booliska naga baabiyey kuwii waxbarashada baabiyey kuwii caafimaadka baabiyey ayaa geesiyaal noo qoran waxaana la rabaa dadka Soomaaliland jooga shacabki waa dad xariira oo sharaf leh oo karaamo leh maalin walba beentii kuwa u sheegayaan bay rumaystaan ku samraan horta ilaahay samirkoogu hoojin maayo maanta waxa halkii barxad cas ayaan maanta u leeyahay inay curada khayr leh kacaan ciidan la arkay cishaan dhaweyn wax isbedeli ciidan faraweyn cagta ay dhigbu nafsigu ka soo carcarsaday isbedel bay manaya waxa soo dhan meel dhaweyna dhaafayaan ilaahay waxaan rajaynayaa inuu dad fiican ka soo saaro oo ummadan abaal siiya oo shacabka abaalkoogu celiya laakiin xildhibaan dadka intooda badan waxay aaminsan siyaasiyiinteena Soomaaliland mucaarad iyo maxaafidan aydan islaamin imika waxaad eedanaysaa in xoolo la dhacay in musuqmaasuq la galay aduu golaha wakiilada 2 sano ka hor baa timi iyadoo deyn la gulayay saad hor u sheegtay maanta gurigan qasriga baad ku jirtaa oo aad dhisatay 2 sano gudahood mushaharkaagan waa la yaqaan xagad ka keentay very good wish way anigu maalintan golaha imiday bangiga dhexe dawladda deyn baa ka qaatay deyntii laamika ayaa laga jaray 5 milyan baa laga jaray jagada ma siistay $20 baa laga siiyay maalintii banka dawladda ka qaatay maanta guriga waxay dhisay shirkadda bangiga la yiraahdo Premier Bank baa dhisay ina Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo bank haysta baan u tagay waxa ku yiri war walaal anigu xildhibaan iska miskiina baan ahay laalushadii lacagana dadka ma qaato waxa ka adigana halgamaaba ku dhalay anna waxaan islaahay dadka ka duwanoo dawsoonow yarsila walaal waxaan ka codsanaya inaad siiso jaga yar baan haystaa guriga dhisto bilaa dulsaara runtii halgamaaba dhalay nin sharaf laba dhalay waa iga aqbalay Premier Bank waysi waad u tagi kartaa waraaqaygi baad soo eegaysaa guddiga baarista gal ahta dowraha gali kara waa soo ogaanaya mushaharkaygana warqadii aan ugu saxeexay mushaharkayga intuu qaadanayo ee waliba aan ku riday walaal mushaharkii intaas biilkii iyo arintii iyo xafada intaasina u baahantay intaasina uu inta bix intii uu bixinay waxaan bixiyo iyo intaan qaatay iyo lacagtaan ka qaatay dhamaanteed su'aal fiican bad weydiisay gurigan bamba ku dhisay bank Premier Bank baa dhisay shirkadda Sambro bartay meesha ku dhigsan buu siiyay ma fahantay waa bangi waliba inaad ka codsanaya oo soo weydiiso Maxamed ay lacagtan ma ku qaatay deyn qaabku lacagta u bixiyo tiraado inay kaaga jawaabaan waa farayo si cadaan oo transparent kaaga jawaabaan haddaan dhinto heshiiskaaba noqolno waraaqihii aniga sharci waxna yimid damiinan waraaqihii gurigayga haysta banku anu guriga sharci uma haysto maanta haddii xilku iga dhamaado baan lacagta bixin waraaqihii bank haysta wala wareega way iibsanayaan wixii baaqaysanayaan waana ku heshiinay marka anigu su'aal fiican bad weydiisay aad iyo dad ma santa ان xildhibaan ka gudbinaa arinta laascaanood iyo arrimaha ka gudbinaa arinta doorashooyinka dhawaan waxa ka soo baxay mid kamid ah beelaha Soomaaliland baa go'aamo soo saartay muddo dheer oo khilaaf jiray kadib go'aamo soo saareen arinta doorashooyinka ay doonayaan ku soo afjaraan adiga sidee kula muuqata wallahi de waa arin de murugadeeda la dayin wadanku sharci wala nidaam bulaate laakiin haddana hadii lagu kala badbaadiyo caawa alxamdulillah rabbil caalamiin buurta waa laga soo tagay maalintii dhawada anigu markaan hadlayayna runtii halkaa arrinka deena sulx maradii wixii lagu kala bixi waay noo qornaatay waxa la koran yar hayna inta buurta laga soo dagay balayno eegna buurta in laga tagay warkaas dhamaado warkaasi official cid u shaacisa ma hay laakiin wararkan ay dhamaantood wax sheegeen arrinka buurta dhamaaday ilaahay baa mahadsan kala nabadgelyada wax kasta wala siistaa soo dama garan dadka iyagoo nolosha ku adag tahay oo wax kasta ku adag iyo walaaladii haddana nabadgelyada darro ku bilaabanto waa mid subxaanallah ma garanaysa dadku iyagoo qadaya way gurigooda way fadhi karaan laakiin haddii guryahooda laga saaro oo banaanka u baxaan kii wax haystay iyo ka waxba haysan isku mid noqonayaan marka wax kasta in nabadda la siisto dee waa aad iyo aad buu wanaagsan tahay mar haddii aan wax la wartay buurta malaa laga degi maayo haddaynu wixii bay soo daraacino koran u hayn haddiise buurta lagaga baxay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin adiga mabaadidaada siyaasiga hore waxaad u ahayd wadani 2017 baad ka baxday haddana kulmiyaad ku biirtay haddana waad ka baxday wadani baad ku biirtay haddana kahba joogtaa bal mabaadidaada siyaasiga maxamed abiib xagee lagu ogaadaa anigu horta waxaan ahay nin
nuur iyo iftiin raadinaya baan ahay maad maqashay saxaabiga la yidhahdo salmaan alfarisi faris buu ka dhaqaaqay 20 sannadood nabiga hortay عليه الصلاة والسلام intuu soo bixin buu raadinay kolba wuxuu tagi jiray wadaad baa loo tilmaam jiray wadaadkaas ku dambeeyay diintii kristanka ku toosna uu arkaa inuu khayay xoolo urursanayo uu ka dhaqaaqa mid kale uu tagaa uu arkaa inuu wax ummadana cadaalad ugu baaqo inuu cadaalad sameeyay uu ka tag aakhirkii waxa nin baa u dambeeyay nin wanaagsan buu helay markuu dambeeyay soo ninkii baa ku yiri magaalada la yiraahdo nabiga ilaahay ku sheegay diintu dibay khaatimul anbiya wal mursaliin wuxuu ka soo baxayaa dhulka timirta leh مدينه تجي معناتي النبي صلى الله عليه وسلم جد إن يهودي أضان وصار مسلمين دلع البدر علينا قاضيين غير مدينة جيت كي بيسك صوتور نور كي مركو نور كي أركضك مو بين نور راعي نور كي ودسيك راعي مركان نور كم كواي أصحابتي وناكسن أنا وحنا هاي ميل وناكسن أو مدنا كهجاتنا الرادينية حتى ميل يستابتو تي ما يرون يهال كانوا كلهم يسني هذا ميل كلهم نكسب مرهديني هذا ميل كلا وايد طلق النهجاتية دنيا ونجية الربع إمك هالك شوكته إمك دانو كابان شو أحسن هالك صاد يا مانتا تي ورودي ولا فريسوما رجع هالك وحسكو درس ده بدل ما كمل هيته يحوق قدي مركا ودن وقت كلا نقاقده تي وطني حسب جيل لأن واحد رمينا على كتير وضع كقيب كله هو جاك تلك قيب كلا الدنيا because وحنا سبديا إنه وحاجين كانوا ضدك وحاجين كانوا سبديا إنه وحاجين كانوا أول 3 شيء بأنا نقول أمثالهم كل شيء هرتاني واحد ماسق لا يلاحظه إلهي أدوس كيس وجارسيا ما ينعيبه ما الحكومة يا دركتين هرت واحد دلك ينتهي هو ماسق العقيد وي إنه نقول بتشاف فرق صدق وكاكلا كشطه وإنه يدي أبي والدنيا وحفيز كدولة دولة سنة هذه سنة كون جردشته هرت كاس يعني مبدئيا إنها تكذب الشر وده قاضي الله هذا مبدئيا sidaad jidkaadu marasiyo cidaadu sidhex marasiyo kuwaad wada socotaan waxaas macna male soo garan maysid waad imanaysaa maalinta timadaad fulina soo shaqaynaysaa qodob labaad baya lama shaqeeyo wadanka dibigiisa lama shaqeeyo waynu fadhinaa in la shaqeeyo oo laba meelood laga shaqeeyo culayska la saaro in xoolihii lagu noqdo xoolihii la hagaajiyo waan doonay aragtaa waan qabaa in dadkana wax beertaan waan doonayayo beeraha lagu celiyo waayo gaajo ka bixi mayno intaynu ku tiirsannahay galaanka meel kale laga soo iibiyo ka bixi mayno dhul beereed 10.4 ka badan baa Soomaaliland jira 100% hal lama beero waxa doona dhulka in la beero sida loo beerano waa very simple waa in ummadda rajo loo abuuro waa inuu qofka hoggaanka ummadda hoggaanka uu noqdo qof ku tiirsan nolosha wixii dalka soo baxay ka bacdina campaign culus la geliyo oo beero dhaqaaqan oo xasan $200 maalintii soo galaan ma daragtay qoryaal iyo dhoqosho iyo beerihii ficlaan ka ficnaad ka beerta day ka beerta galeetii diisho deedna calaf maanta dadka gobolada jooga bariyo dhani dhul beereed fiican baa ku nool laakiin qalbigooga lama gelinin wax beeri karaan dawladdu kamay qayb gelin xoolino ka dhamaadeen waxa idin la fadhiisiyo noloshooda la bedelo dawladnimadu waa dawladii waxa weeyaan 1970 dadkii abaarta ku dhacday halka bari ku dhacday inta rartay ee xoolo dhaqatada ahaa u bedeshay beeraleyda ee geysay ku tuwaareeyay maxaa la yiraahdaa iyo sablaala iyo dhulka geysatay ya beeraley baa laga dhigay dadka marka xoolo ka baxaan beeraley laga dhigo ka xoolaha iyo waa in xoolaha la fariisiyo maanta xoolaha dekedeena ka dhoofa 90% waxay naga soo galaan waddanka Itoobiya ama wadamo kale naga soo galaan because neefkeena xoolii dhiigba xun baa ku soo dhintaan maba tarmaba dawladdu shaqo kuma leh xitaa beriyihii dawladdii maxamed ibrahim cigaal baan u xasuustay xoolaha la talaali jiray oo la daryeeli jiray oo laga wareyn jiray oo lolaha xoolaha uu jiray caafimaadku dib baynu soconnaa garsoorkeena dib u socdaa imika bildan waxaanu daawanaynaa musalsal dood ka socotan dad musuqmaasuq lagu eedeeyo si babliga maxkamadda Soomaaliya u dhageysanayso inaga ka horreynay 1998 baa la dhageysanayay tuur cabdishaday iyo jarankii ciidanka la dhageysanayay oo adartay furre alaana xariso la sii deynayo halkeen u soconnaa dib baynu soconnaa maantana kuwa garsoorka jooga dhalinyarada digitalka wax soo barnay mobilkaasa dadka lagu qabsanaya iyadoo tuug la xukumaya laga baqayo saa loo gariirayo 6 subaxnimo 40 askar lagu soo qaadayo bishaar ma qof fidishay maalintii dhuutole xidhnay 20 gaari baa lagu soo qaadayay waa xuqaayo ummadda in la jabiyo la cabsi geliya waxa loo sameeynaya oo dadka la iskaga dhiga balaayo waddanka ma ku tifaaco mus maal dood buuras inanta ma soo qaadayo inanta meel laba askar soo qaadi karin askar baa la waayay subaxii dambana mid 20 gaari baan oo ma 20 gaari baa inta lagu soo qaaday qof fidish habdhaqanka caynkaas ayna marka anigu habdhaqanada caynkaayna waddankan ka tabarjara doonaya maadaama aan ka rabo raadca ku jira raadcadaasi maalin xasan oo tog dheer bay la gelaysaa
maalinna berberay la gelaysaa maalinna boormay la gelaysaa laakiin intentionkaygu waa inaan ummadda hagaajiyo weeyaan labada cudurna ka dabartiro Soomaali meel joogtana waxa dilay nin inta uu la joogo kala abtirinaya inta uu la joogo nin uu kala abtirinaya iyo nin wixii yaraa soo galbay soo ka cunayo ka dhigaysanaya labada ayna ka cirib kala doonaya marka labada inaad ka cirib tirto ma ka habad ku aragta waa jid kamida jidadka aniga mustaqbalka wax laga yaabaa inuu ba kacdo doono 10 sano ka haday isagoo odayaal kale deegayo inay joogaan inuu ba dhamaada laga yaabo Soomaa halkaas aan rabaa inaan u maro processka adu alka u socota halka ugu sareysa u socota hayna wadanka hagaajiya dooni marka hagaajinaysana waa inaad dawladda taafkeeda qabato hagaajiyo hadii kale maanta bayna wax hagaajiyaan waan doonaya rag badan oo kale reer Soomaaliland way doonayaan oo iga fiican oo iga qurux badan baa jooga jiil iga wanaagsan baa jooga oo iga daacadsan baa jooga waa la laayay waayo ninka xun inta xun soo ruusan Soomaa maxaan rabnaa inaan inta naga wanaagsan la soo saaro oo dadkan ninka hogaamiye fiican hogaamiyaal fiican uu soo saaraa tuuguna tuug buu dhalaa khayb buu dhalaa adee waxa weeyaan maanta dad isku mid ah oo shaarkoogu isku mid yahay baa wadanka u shaqeeya waxa lagu tartamaa maanta maxaad qaadatay imika baa xadartay anu gudiga dabagalka ku jira wax dagaal lagu dhaco wada takallaba su'aalaadu ka weydiin baaris haddaan sameeyno hay'adda dhan ee hanti dhowrka la yiraahdo wadanka miyaad aragtay sanadkiina dhaafay hal qof wixii dhamaatay hanti dhowrka xorta leeyahay maqashay wariya Thailand oo mas'uuliyadda waa yeel agaasiman maqleed maxamed ay bal xildhibaan waa imika gurigeyga ma weydiinaysaa فرق الكويشوي إن هذا ويدي سول ويدي ولا بعرف ما قلت لك مامونا كذي ويديان هذا كباين مامونا كمان تعرف شو قلت أود بقولي هو أنا أودي قرن قلت لك قف ويدين مايان ولا سكوا ذا الناحي لا سكع عطاهي حولي ما تلا سكع قلت هل قفنا حتى ناس أنا خدمت بيسارد الدنيا هذا دوري ما نسي دوي تولان قولها غيرني لا أعرف وصوت كذا تقال ما أقولها وأنا كان هتدور على عكتي لواس يوقف قبتين ويدين على هذا laakiin xildhibaan dadka Soomaaliland markay dibadda ka daawanayaan qof kasta markaanu xilka ama midida daabkeeda hayn wuxuu doonu sheegaa sharcigan ilaalinaya musuqaan la dagaalamaya cadaaladda kor sareynaysa maalintu xilka qabtaan arinta ugu dambaysa dadkaas maxaad kaga duwantahay adigu wallahi waa arin aad iyo aad u muruga badan waana arinta shacabkeena dishay weeyaan ma dartay dadkeenu maanta markaan ololeynaa nagu lahayn warin habibu waxaa subax subax kama jiraan shaqo dhaxniyo islaama baadiya ku oranay jooga qofkuna waxa leeyahay ma jiraan balamo uu qaaday oo fuliye markii anu ileen kolba inta la bajirintiisa la daadii alamaad wala soo darto xilbaan baan soo waxyaaba ballan qaaday ba jirin warbaahintiinu inaad baadhan ba fiican maxamed muxuu ballan qaaday wixii ballan qaaday dad daawatan golama ka fuliyeen adeegtaan ba iyo wareysama أنا وحياة بالله قاعدة إلا ما أنت اللي يقولني هذا يكون جرب في سواء كم ده إن أنا شيء دوبا أنا عدو واسعين بجد إن أنا كقريب قليل وحياة هذا كويس سمعني يعني ده ومد حوالي دعية مشاريع ذلك أنا ما حضر مشاريع دون أنت مشاريع دون اللي سينه لكن شرف إيه معينا شرع ولا ما قلا إن المواطنين تصوت ورت كلها تحت ما بركة يعلم حال هذا قد قطر راسي غيرك محمد المشروع بقاتمان مغش بجد والله ولا قاعد سحبته ولا يعي هبين مالين بدك مساكين كوي صوت ورتال ولا ترتمية وأنا كل ما ترتميو dadka shacabka ay soo doortay iyo waliin hargeysa joogay burcad joogay ku boormay ka soo doortay kula tartay maay anigu burka waxa duduub lagu wasaxiyay shaqo ku miliyaan dadka masaakiinta aanu hadlayaa baan ku riyo dadka inta jilicsan anigu dadka inta kale waxbis ku min ilaa maanta waa hadlay oo taagnaa waa run Soomaaliland laba nin baadilayo nin maalintu Maxamed Ayuub nin maalintu wax doonayo maalinta dambana nin kala maanta dadku wax isku haysanaa deelikii matiida dadka te ugu yaraan waa inaad dadku xuftiin soo sheegto haddii ninka xildhibaan ka maxal yidhi soo taxasaanada loo sii xildhibaanku waa inuu wuxuu xasan shay kari waayo xabiib shay kari waayo faarax shay kari waayo shacabki waa inuu sheego Soomaa ku dhiirida weyn sharciga intaas la siiyay oo waxay muuso dadku la gabadaan indhaha ka saarantay intaan umada dadku ay ka qeylnayaan waa intaan marka waxa weeyaan anigu waxaan isleeyahay waxa umada niyad jabka lagu sameeyay iyo maaragtay beenta umada ay ku baratay madaxda in la bedelo imika fafaaro fiican baa muuqda waan isleeyahay Soomaaliland markaad aragto rag badan Cabdikariin oo kale markaad aragto oo shaqeynaya wurdi oo tabcaya Soomaa ya haddii haaneedka la siiyo kuwa ka wanaagsan bad ka luuqa ku jiro soo baxay oo soo boodi marka dadka wax la haniyad jabina haddii kuwii ka horreeyo master hebel beesheegan waa run bini'aadamku niyad jaba u naca dadka
laakiin dadkeenu waa gob weliina may nicin iska daabay koodhanaya muusahaas iska daa koodhanaya kaasaa u galay wax walba ka baabiyey ilaahay gobonnimadeeda isku abaalmarinay dad wanaagsan buu soo saaray insha allahu tacaala weli intaa talo qoraala qaaday madaxweynaha ma ula tagtay uma tiri mudana madaxweyne aadan warbaahin ka hadal talooyinkan aan ku sidaa dee jidkaasi shaqada weyga baarlamaanka u shaqeeyaba maaha dastuurka haddaad akhrida waad arkaysa qaabka baarlamaanka u shaqeeya waa public baarlamaanku furan buu shaqeeyaa doodaha iyaga soo jeedimaha iyaga qaraarada dastuurka saas u sheegay qaab furan isuguna la si shakhsiya si shakhsiya isuguna la xajalo waa si shakhsiya maxaa institution madaxtooyada waad arkaa wax bir iyo buur iyo askari hor yaala yaaba waxbaanke maanta tolo madaxtooyada xildhibaanada ay soo diraan ma batigin maanta dhowdee la doortay hoggaanka magaranaysa anu ma raax xildhibaanada saaxiibana la soo diro dib baa baarlamaanka laga soo doonay hadduu tala dhegeysanaya habeen walba ku naga wanaagsan oo iyaa u tago diiday u diiday talu laayado haysata tala ma laha tobanka isagoo dhibaatada waddanka taagan ka jawaabi lahaa shalay ka jawaabayey hebel u xanuunsanaya shalay ka jawaabay adarkeena waayahay waxaad la socotay xilligii ololaha doorashada Yaan waad garanay. dhistay caruurtaada xitaa inaan kaagaad u bixisay magaciisa adoo ugu magac daraya adigu markaa meenad garanayn dee ma garanayn qofka biniaadanka wax calooshiisa ku jira ma garanaysid anu maanta madaxweyne ma noqdo waxaan kuu sheegi baad rumaysanaysa xasana soo maate amaad beesan kartaa oo qaadan kartaa markaa dee ima dhadhamin kartid dee hal shaqaqta qalbi qofka qalbigiisa haduu ma jeexaysid dee markaa dembigii qaybsa kuma lihid dee may kuma lihi haddaan maalinta dambe kusii garab joogaan ku yeelan lahaa maalintii waa nigii heryada tuuray weeyaan ee ku hori muuse jidkii iyo wixii ummaddu ay maad aragtay ugu sheegatay uu ka beedhay dadkii ugu horreeyey baan ahay malaha waxaan ahay dadkii la socday qofkii ugu horreeyey ee shir jaleed kaga hadlay xaaladiisa oo wallaahi markaa dee haddaan kula sii socon lahaan odhan lahaa ninkan waa dhistaa ilaali ayaan dambiga qaadan lahaa laakiin anu isagoo shacabo oo halkaa joogo cod raadinayaan dee taageereed samay hadhe markaan arkay baashii inuu laambadeen waan iskaga beedhay taasina waa dabciga biniaadanku dee rasuul mahay rasuulka maalin haddaad raacda dad ka noqoto waxaa ku hor taalla dee inaad ka noqotay maxaa la dhaha iimaanka iyo nuurka iyo hidaayada laakiin markaad nin madaxa dhisteed aragtay inuu qalloocdeed ka baydho lama dambaabo ajar baaba la helaa musharax cirra imanka maxaad uga carartay waddani mayaanu sharay kama carinta urama la dhisay ya dee an waxaan rabaa meelaan mustaqbalka aan sooniga kula han baa igu jira laakiin dee xisbi fursad ku siiyey fursad dee fursadda xisbigu siiyey tii labaad biga xidhuda dibadda ka soo ururtay hoggaanka xisbigaan doonaya inaan galo soo de garamaysid tii aanoo ku samray oo iska daayey ayaa maalintii dibad haddana markii la sharaxayay baarlamaanka oon isku arko inaan cid walba kaga wanaagsanaan la kuuri iyo rag kale layga garab sharxo xisbiga kale ka soo baxay yaa wala sharaxaya marka xisbiga anu cibaadadan ka helaa dee haddaanan aanan hayrisigiisa iyo hankiisa aanan ka qayb gelin ile dadku rag wax isku darsan nima haadhe adigu musharax baa tahay ana halkaan ku habboon han geliya de haddii laakiin halka aniga igu habboon dibadda looga tukaamaysi tago dee yeeli maayo waa inta xasan inta noo dhexaysa marka kaa imika maxay ku siisay ya kaa maxay ku dee siisay ragga aragti wadaagaan nahay dee oo wax kala qaato dee wada dhisaya horena waa isku ogay haddii ururada la furo heerade maadaama xisbiga dee aniga dee hoggaankiisii oo aan u mudnayn dee aniga iyo sheekh axmed dee dayib iyo soo de garamaysid de sheekh axmed dayib de xildhibaan axmed ku cadday aanu hayn de waana loo diiday aniga axmedna waa tashano waxaan idhi haddii laynoo diido rag kale dibadda laga soo rursay dee haddaynu intaa kaga tagno arrinta reer awdal iyo tabashadooda maalintii dhoweydna khudbadaadii waad ku soo dartay arrintaas bal ka war arrintaasi waa arrin weyn oo jirta weeyaan dad badan oo awdal kasoo jeedo meelaha joogin waxay lahaayeen markii dagaalku socday aynu inaguna hawleyna ka hadalnay arrinkaa ka hadalna waxa ku ceeb baan ku arrinkaasi laba meel ku tirsan laga hadli maayo maantana waxa weeyaan dee gobolkii sool iyo dadkii halkaa deganaa dee waatan dee oog baan joognaa soo garamaysa wixii dambe laga wada hadlayo aan in xoog wax lagu xaliyo ma qabay wada hadalku iman iyo halkii maanta inteena dee haya wada joogto inteena inaan wixii wanaagsano oo dhexdeena wanaagsano hargeysa dhexdeeda la wanaajiyo burca dhexdeeda la wanaajiyo hargeysa iyo boorma dhexdeeda la wanaajiyo aad iyo aad bay wanaagsan tahay oo inoogu wanaagsan tahay hadduu caqli yahayna uu daacad waddanka u yahayna intaa hagaajiyo waxaa hagaajiya qabaa ma fahanta anigu haddaan idhi boorama shiraysana haa shir wax lagu hagaajiyo waa la shiraya kullaagii dadka wax ka xumeeya ya halinka may lana shiri maayo marka ma waxaad doonaysaa in arrintii laascaanood oo kale ay buuram no may ma rabo aniga shayga ugu horeeya lahayba nabadgelyo wey qorshayga ugu horeeya falsafadeydana waan kuu sheegay markii hore waan iloobadii weydiinaysay anigu waxaan aaminsanahay
arrintii Mahatma Gandhi iyo Martin Luther King iyo Nelson Mandela aaminsanayeen in peaceful demonstration in dadku ma aragtay ay isku bedelaan nidaam nabada oo wanaag lagu sameeyay aaminsanay qoriga wax la dhama ba aaminsanay habeenka jabad baa meel fuushay jabad baa qori qaadata la yiraahdo naftaada ka baxda because dawladnimada أنا محمد أيوة حان أكثر صنع وحر هذين إيانا ومدة هجاتي دنيا إنه إنا قفت لما الدنيا قفنا ولا دنيا إنا قفنا ولا شيء هجاتي دنيا أو سدوا شلون ولا شيء دون ولا هذا لكن مركات تهاي قف كهمية إنا جبهة سمايسو إنا ضد جالسيسو إنا تسلايا أنا دونيسو تهينا قفنا ولا شيء بس عتينا ضد كلا يصير سعتها you are killer رباط هيدا I'm not killer أنا ما بتهاجر قريب بقى dadku haday barnaamijyaan inay si asluub leh board qaataan calan qaataan ay yiraahdaan saasan diidayna waan ogolahay waxa la yiraahdaa waa jidkii Mahatma Gandhi waa nidaamkaas aan aaminsan anigu jabadaha ma taageero dadka la isku diraya ma taageero dhiigga ummadda dhexdooda kala gaariya ma taageero laakiin ummaddu haday wax kala tabanayso haday magaalada tog dheer wax tabanayso waxaan aaminsan reer tog dheeranay intay sameystaan board sameystaan anagu ka soo qad Maxamed Ayba madaxweynaha anagu madaxweyne Maxamed Ayba kuma qanacsanin ay board intay ku qoraan ay saay u qoraan ay taagan والرجالنا وحرفت وقضب عنا سيح حرفت لا تقول شوابسة مركا أنا ما مستني شفت ما أنا مستني وحلا سعرات كنا عايم مصيبة أنا وركا قيامة أنا وركا كود جيستنا ده كيدون لك صوت شدنا ولا ودي دون قيامة أنا جديك بلا آذان إن مالين حسابته إذا كم من نقضه اقتل صومها ودل صومها كلمة الأقف كقدر ربلي آيات بلا لكن أنا واحد دنيا فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هنا نقطة الدنيا أوقف كلمة اللي يكون بتبادو أوقف هذا اللي يكون بتبادو أوقف بروتكشن يقع نسي يكون بتبادو الدنيا مركا هير أوضل أدو محاكمة قناة لأمسنت وحكم غير أوضل وادكت هذا وادكت ما قنع سنو أنت هتضاد بكتير سو ممكن أنت من الدودين هذي أنت هتقرأ ستة بريبورم إلا قنع عمله بعناه اللي دوي تلك أنت سيكوجرت haddii la fadhiisto oo la yiraahdo walaalayaal waa kan waxa roo macquul maanta ka rooshiyaasina Soomaaliland gudaheega u yaala madaxweynaha dad badan kala soo burqanaya inaynu dib isku cusboonaysiino inuu isqancinana wanaageena jamhuuriyadda wada dhalashadeena ku jirta very simple laakiin wixii qofkii inta ka badan wada anigu lama socdo lama dhacsan raalli kamay oo cadi warkeeyo marka waxa jira dhaqdhaqaaq dibadaha ka socdo ay wadaan dad ka soo jeeda gobolka Awdal oo ugaaskiina uu ku jiro dadka hoggaan cusub ee halka ku doorteen Canada adigu aragtaan saad aragtaa wax allaaliya wax anigu nimanka aragtay kala ahay waxa kala socdo qofka 40 sanadood joogay halkaas iska shiraalkaas ka shiray dadka halka jooga muxuu yahay dadka anaga oo madaxa anaga oo mas'uul ma fahamtay wixii isbedeliyo wixii ka maqan iyo wixii soo kordhayna anaga halkan uga talnayna dibadda jooga u talmaayo ana ku halka wax rabnaa progress ba rabnaa inaan horumar sameeyna doonina waxa doonayna hor u soconaa doonina laakiin ina dibna loo celiyo halka maanta laas canoodoo adogtay dadkii oo dhan qaxeen oo dibadda ku qaxeen oo burbureen iskuuladii dhaqaatiirtii waxbarashadii wanaan halkan Hargeysa lama doonayo laas canoodoo waxaan la qeylnay aan laas canood cid kale ma hadlay qofna ma hadlin inta shacabka burburayo hooyada iyo ilmaha xambaarsan ee dadka jilicsan ma diidana kuwaas Hargeysa u diidano gacan libaaxda u diidanay dadkii talooyinka ku lahaayeen fikradaha caynkan yimaadaan bana taariikhda xus doonta halkana lama rabo ku cid kasto fikirka ku wadana aniga walaalkay ahaad Cabdulqaadir abaydalna hade shaqo ku milyan laakiin la doodo oo wax la isweydiiyo oo la yiraahdo war waxaan kuma qanacsanin oo si peaceful loo yiraahdo oo si nabad loo yiraahdo 100% ma ko jidkaan rabaan inaan wax kasto rabo marade aad iyo aad baad mahadsantahay xildhibaan Maxamed Abiib oo waraysigaasina siiyay Gallery Media aad iyo aad xildhibaan kugu mahadcelinaysa aad iyo aad baad mahadsantahay